maxaa sababay arrinka ah in Itoobiya ay ku dhiirato inay tiraahdo magaalo Soomaaliyeed ama gobol Soomaaliyeed ciidan Soomaaliyeed oo 3 maalin gudaheed uga baxa oo idin qabanayna waqtiga si inay dalka iyadu maamusho qal yarayaan ka diranay arrin saaxiibayaal ku soo dhawaada marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal ku soo dhawaada barteena YouTube-ka Abwaan Hilaac subscribe saara farta saara naga qurxiya meesha toban ku nagu tuura saaxiibayaal durbaba waxa maanta ka hadli doonaa maqaal dheer oo aan ka diyaarinay waxyaabaha sababay su'aashana waxay dul saaran tahay maxaa sababay arrinka ah in Itoobiya ay ku dhiirato inay tiraahdo magaalo Soomaaliyeed ama gobol Soomaaliyeed ciidan Soomaaliyeed oo 3 maalin gudaheed uga baxa oo idin qabanayna waqtiga si inay dalka iyadu maamusho waxaa jiray arrin aad iyo aad haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed saameyn weyn nagu yeesho qof walba oo damiir leh oo dhig Soomaalinimo oo ka dhibcaahina ku noqotay aanfo lama filaan ah in dalkaaga lagu yiraahdo 3 maalin laga qabanaya ka baxsi dal Islaameed oo kale waxaa la dhihi karaa adduun inay ka dhacdo iska daayay xataa wax ku fakiray lama arkin hadda ka hor qof walbana Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ishiis laga arkaa ushiisa lagu tumaa anaga ayaa laan ka arkaan dhihi karnaa taamkii laga soo gudbo su'aasheen waxay u taagneen maxaa sababay haddaan runta isku sheegno Soomaaliya waxaa sababaan dhihi karaa ani ahaantayda magaan fikradeyda ka hadlo ka Soomaali ahaan maanta halkaas naga istignayaa la dhihi karaa sababtoo ah cadaawuhu qolo isku duuban ama qoom isku duuban wakala dantaali karaa haddii ay ayagu iskhilaafaan balse haddii isku duuban yihiin tabaryari kasta ha lahaadaane waxba kama qaadi kara sababta Itoobiya annaga oon dowlad noo dhisnayn ayay wax naga qaadi weysay balse maanta oon dowlad leenahay inay saas nagu soo hawooto oo ay tiraahdo gobolladii iyo magaalooyinkiina qaybo ka mid ah 3 maalin gudahood uga baxa meesha ayaga aan dhihi lahayn waxaan dhihi karaa waa nasiib darro aad iyo aad u weyn oo haysata bulshada Soomaaliyeed annaga isku keena markaan idin leeyahay been maaha sababtoo ah qabiil walba wuxuu rabaa inuu calan taagto qabiil walba wuxuu rabaa in dunida uu kaligiis la macaamilo qabiil walba wuxuu rabaa uu ugu xumeeyo kan walaalkiisa inuu cadawga wax walba uu ogolaado bad iyo biriba oo diyaar u leeyahay inuu siiyo inuu ku wareejiyo asagoo ayna jirin wax cad oo ka siisanayo oo aan ka ahayn walaalkii iga difaaca maanta bal ka war nasiib darro ka weyn miyaa jirta in maanta inta qof ku yimaado uu ku yiraahdo waxa rabtid iga qaado laakiin kala walaalkii iga difaaca adoo shay ah oo labadooda rabay meel aad ka soo gashid haddii taas ugu yiraahdo chance weyn waa soo mid cafinaysa ma jirto marka annaga ka Soomaali ahaan halkaas naga iskeenay in qabiil walba ay calan taagto in qabiil walba meel gooniyada baaldego in qabiil walba ay gees u leexdo in qabiil inta la dhaafay ay maanta ku dhowdahay jufaxata xagga ii dhige qof walba inuu yiraahdo kaliya calan sameeyay calankii waxa la yiraahdaa hebel maanta Maxamed la yiraahdaa ama Umar calankii Umar baa la yiraahdaa halkaas bay nooga dhowda wallahi runta markaan hadalno sababtoo ah annaga waxba isku maqarinayno waa isna qaadnaa Soomaali markaan waxaan leeyahay saaxiibayaal laba qodob baa naga ayaa ku kala door leh haddii aan halkeena ku wadayno ka dhalinyar ahaan ayaan hadlayaa sababtoo ah wadan walba waxa hogaamiye dhalinyaradiisa ayaga dumiye ayagaana dhisa ka dhalinyar ahaan dadkan maanta ay arkaysaan kuraasta ku fadhiya anu cidna ma dhaliilaayo mana aflaga deenayo balse waaqica jira ee Soomaaliya ka jira ayaan ka hadlayaa inaan ka hadlana taas waan wax isku sheegno waan isku leenahay aan kala qaadan ama yaan kala qaadan laakiin ana kala qaadanay dan inoogu jirta maanta siyaasiga nooc doona ha ahaade ama qabiil ku taageer ama si kale u taageer sida saxda ah 100% nin walba inantiisu wata markuu maanta kursigaasi ka dhamaado wadan kale haystaa deganaashihiisa ama dhalashadiisa isagoo aada maalinkuu xil u baahdo Soomaaliya imaha adoo ku imaana oo meeshaas isku baahna shalay markuu kaga tagay maanta markuu imaanaya wuxuu ku leeyahay olole dooro aduna asagaad qof walaalka oo Soomaaliya ku raaddegan ah ku caaysan aan xabadna ku qabaneen kuna aqooninba marka nasiib xumadaas iyo wax ka sii darana waliba haysta in maanta salahan hadda aan soo qaato gobolkan hadda xaaladiisa aan ka hadlayo gobolka Gado kama dhacaan dagaal beeleed inta badan waxaa naafiyay dalkeena dagaal beeleedyo qolqolo isku duuleeda kama dhacaan dagaal beeleedyo balse waxaa ka dhaca dagaal maamul oo marba qola isku hardameyda mar maamulka gudihiisa la isku diraa mar dawladda dhexe iyo maamulkii isku haysta nasiib darro ka weyn ma jirto horta shay inta la gaarin annagaaba shay dhahaynaba irdii waatan kaale ka soo galo walaalka iga celi caalamkana meelay ka dhacday weli xataa inaan maqli iska daaya ama qof maqlaya cid ku fikirtay xataa ma jirto marka sida saxda ah waxaan wax loo dul qaadan karaa maahan aan dhihi karaa dawlad intaan eedayna ama maamulkeena ama xukuumadeena aan eedayna ko anaga is eedaynayna sababtoo wax walba anaga ka dambeeyna si saxda markii loo hadlo waa ma aan rabin balse hadda aan ku soo lifaaqo maanta shanta Soomaali ay dhan isku fiiri ka soo bilow NFD ayagu
maantay siyaasiyiinta hogaamiyahay ma rabaan in Kenya ay ka baxaan oo maantay ay dowlad salaadin inta Soomaaliya ka dhalato ee Soomaaliya ku darsamaan ayaguna halkaas ay bariiskooda ku waayaan dowlad salaad adag oo bariiskooda ay ku waayaan iyo xukunkooda ma rabaan ay rabaan bariiskoodaas inay halkaas ka cunaan oo aan cidina ka qasin iyo Soomaali galbeed to kale rabaan ayaguna faad Jabuuti ay xaalkiisa iska badaa anaga ku soo harnay Soomaalidan maanta la isla wada aqoonsan yahay caalamku isla wada aqoonsan yahay oo maanta Soomaaliya ku magacaaban magacan baa iska sidana ma ahane ani dal ahaan marka aan runta isku sheegno waa caalamka aan ugu ceebeynayo xaq idin anaga ahaan hoos u hadalno anaga ahaan marka aan hoos u hadalno magaca dal uma hubina ma ahane inaan dal sheegno qalad in wato waa inaan ku horta maskaxda ku xoroona laba waa in aan maamulka ku xoroona anagu waxaan rabno horta shacabka Soomaaliyeed waxay rabaan waa inay samaysan karaan maamul walba in cabasho ka taagan tahay asagii uusan xataa dalkii difaaci karin asagii meel walba looga soo dhacaayo wax loo dulqaadan kara maaha daandeen marka teeda kale waxa kale arkay diblomaasiyadda ayadana qacweyn oo naga yeertay nin ma aqoonsanayn badal in Itoobiya ka soo dhigatay macnaha safiir Soomaaliya jooga soo dib loo baarin waraqiisii hore laga guddoomay caalamka 2 sano baarisa carabta noo dirayaan marka safiir u dirsan anagana 2 saacadood xataa 2 sakiin aan dhihi kara xataa lagu mahaynin meesha waraqihi laga qaaday hore laga guddoomay la iskama baarin salkiisa qof walba maantay marka caalamka la joogo anagu aan isqaylno madaxdeena aan dhalino laakiin qof dibadda ah markuu ku gafo waa lagu tixraaxa wax walba xataa ninkaas xabsi ku mudaysan kara iyo dambiyo waaweyn iska dhaxta safiirnimo in la guddoomay in la cayriyo warqada xataa sababtoo ah in maashallah ku afrageydiinaya maantana adiga safiirnimo ku soo doontay waxa lagu tilmaami karaa marka wallahi waxaan ku tilmaamo ma garan karo sababtoo ah maalinkan islahayn oo kala hatay shan baa la maraya casri baa la gaaray dowladnimo idin dhalatay wax walba way sii hagaagayaan inta anaga gudaheena xaq iska dhigtid kuwii aanshada anagu dowlad haysan ciirsanayna yaaba ciirsanayo anaga sida saxda marka ka hadalno maxaana keenay anaga maalin ka dambeeyda meesha rabina isku soo dhawaano midowno waa sii kala soconaaba gobol walba haba gooni u sii socda qabiil walba gooni u sii socda jufo walba shakhsi walba gooni u sii socda kaaga daran qof walba waxa u maleeyaa inuu yiraahdo kadib dowladeeda hebla la yiraahdo ala qof Soomaaliya 20 milyan amal la ku sheegay ku nool Soomaalida xorta ah inay yiraahdeen qof walba hebla la yiraahdo dowladeedana waa hebl qof walba inuu yiraahdo maleeyaa 20 milyan dowladda ka dhisan wallahi wax kala ma noo haray sida caadiga anu marka idna yani ma taagaayo balse waxa meesha ka wada waaqic dhabta ah ee jira horta intaana Soomaalida maqnid isku raadin anagu aan meel gaarno sababtoo ah wax qaldan marka is aragno waan is dhaliilaynaa anaga waa rabnaa kuway maqnaa waa sax balse waxa ka horeyso horta bal anagu horta meel saarno marka aniga maanta aan dowlad dhisto wax walba ay hagaagaan qof ila hadli kara oo si jirin dadka iga maqnaa xog iyo xaalad waa ku raadsan karaa laakiin tii aan haystay xog la iga sii qaadayo xaalad wax aan raadi kara ma laha Soomaa marka nasiib darro weyn aan haysataan dhihi karaa sida caadiga marka aan hadlo saaxiibayaal barteenaan waxaad marwalba ka daalaca doontaan warar xaqiiqa oo ka soo horjeeda qabyaaladda laab la kaca waxaas oo dhan aniga maantay qofka Soomaaliga ah kii Soomaali wanaageeda jecel qof walba oo Soomaaliya walaalkiisa aan walaalkay in adeerkii haduu qabiileystay hay isma naqanaya asaga isma soo galan xataa sida caadiga qarabada waxa lagu xiriiriyaa oo aan adeer ku dhihi karaa waa markuu Soomaalinimada jecel yahay oo mid walba Soomaaliya aan adeerkay sida saxda marka laab la kacana iska deena meel isgeema saaxiibayaal haddaan adduun wax ku qabsanayno wax fiican aan ku qabsanaa aqaladana adduunka naafacay 2 mitir la isku wada qof kula galaya ma jiro kula gali ma ka maanta qabiilka iyo qabyaalada ugu dhimanaysa marka waxa hadaltan iyo Allah ana sida caadiga markaan hadalno saaxiibayaal aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalka aan ku dheereeray lahaada meeshaan iga camira saaxiibayaal 2 kun aan dhaafilanahay 10 kun ugu tuura barnaamij xiiso badan ayaan isbuuciiba dhowr jeer qabac ka sii doonaa insha Allah bil kariim